Gudoomiyaha Gobolka Togdheer ayaa u qeybiyey dhalinyartii dhameysatay barnaamijka shaqo qaran kaararkii ay ku shaqo gali lahaayeen sida uu warkaasi noogu soo diray wariyaheena Cabduqani Cabdullaahi Baafo. Gudoomiyaha Gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa saaka dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran u qeybiyey kaararkii ay kaga howlgali lahaayeen wasaaradihii lagu soo qoray munaasabad kooban oo loo qabtay ayaa waxa lagu qabtay xarunta maamulka Gobolka Togdheer waxaana goobjoog ahaa maamulka Gobolka Togdheer iyo dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay barisaabka Gobolka Togdheer oo la dardaarmay dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran. maanta halkan waxaynu insha Allah ku soo gabagabayn doonaa qaybtii hore ee ahayd tababarka ardayda shaqo qaran ee Gobolka Togdheer oo tiradoodu ay ka kooban tahay 160 arday iyo hal arday oo laga soo bedelay ceerigaabo 160 ka arday oo isugu jira 160 habla iyo 100 inama oo labada qoloba ay soo dhameysteen tababaradii ay qaadanayeen muddada 3 bilood ah. maanta waxaynu loo gudbi doonaa wajigii labaad ee ardayda shaqo qaran oo noqonaysa in arday waliba wasaaradii lagu qoray uu ka shaqo galo. runtii mashruucan shaqo qaran oo waqtigii uu ku jiray ololaha doorashada xisbiga kulmiye ee uu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo musharaxa ka ahaa barnaamijka shaqo qaran wuxuu ahaa waxyaabihii ka soo maaxday waqtiga uu musharaxa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo runtii diiradda ku saaraya sidii loo horumarin lahaa ama wax loogu qaban lahaa dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baan mahadnaqaynaa in maanta Gobolka Togdheer uu leeyahay 160 arday oo shaqo qaran ah oo runtii marka koobaad kayd uu leeyahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka labaadna uu yahay kayd uu leeyahay Gobolka Togdheer. dambeyntii waxaan halkan mahad uga dirayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo mashruucan shaqo qaran maskaxdiisa ka soo maaxday. keesta kale iyaguna waxa halkaas ka hadlay mahad celin u soo jeediyay qaar ka mid ah dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran Gobolka Togdheer waxaan qaadanaynaa shahaadooyinkii kaararkii iyo goobihii aan ka howlgalaynayba maanta waxaan u gudubnay wajigii labaad ee barnaamijkii shaqo qaran. marka ugu horreysay waxaan mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka labaad madaxweynaha iyaga iyo barasaabka Gobolka Togdheer. halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha shaqo qaran barasaabka Gobolka Togdheer ardayda kumanaanka ah ee shaqo qaran waxaan kalaad hambalyo ugu dirayaa waan halkan si gaar ah ugu mahad celinayaa gudoomiyaha Gobolka Togdheer mudane Xamse وعبد القناع عبد الله بافو ورك تلفزيون كرويال مقالة برعو.